gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliya mudane Muuse Xasan Yuusuf iyo qaar ka mid ah madaxda xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasadda oo xilli dambe xalay warbaahinta kula hadlay xarunta komishanka ayaa ku dhawaaqay in tirintii codadka iyo sidoo kale natiijadii doorashada gobolka Maroodijeex ay si nabadgelyo ah ku soo dhamaatay. sidoo kale gudoomiyaha komishanku waxa uu sheegay guud ahaan in Soomaaliya ay si nabadgelyo ah ku soo dhamaatay cod bixintii. gudoomiyaha arrimahaasi ka hadlay mas'uuliyiintii kale ayaa waxay yiraahdeen saacadu hadda waxa ay ku dhowdahay 3 habeenimo waxa aan runtii shirkan jaraa'id u saarnaa ama u daaranaa in aan bulsho weynta reer Somaliland ogeysiino in ay soo xirantay tirintii codadkii laga dhiibtay ururada iyo madaxweynaha ee degmada Hargeysa taas aad ula soconaysaan sidii hore halkan aan uga sheegnay waxa weeyaan wax natiijo ah oo ilaa imika lagu dhawaaqay oo ama hordhac ama rasmi ma jirto cidda uu xeerarkeena iyo shuruucdeenu siiyeen baa ku dhawaaqi doonta taana shacbiga waxaan leeyahay idinku oo mahadsan sidii aad intii kaleba u sugteen ha loo sugo natiijada doorashada aad iyo aad baad u mahadsantihiin oo runtii halkan ay mudan tahay maadaama aan nahay daneeyaashii loo shaqaynayay ee shacbiga ka wakiilka ahaa ay mudan yihiin in loo xuso oo loo mahadnaqo waxa ugu horeeya hay'adda komishanka doorashooyinka qaranka oo hogaaminaysay mashruucan doorashada ururada iyo xisbiyada ee dhacday 13 November 2024 waxaan qiraynaa haddaan nahay daneeyaasha siyaasadda in muddadii aan ka wada shaqaynaynay ama aan ula shaqaynaynay komishanka hawsha ay hayeen inay ahayd hawl hanaankeeda iyo hufnaanteeda iyo maamulkeeduba uu yahay mid runtii degan laga wada tala wadaag ahayd lagu wada qanacsanaa laga wada tashanayay go'aankana la wada qaadanayay runtii aad iyo aad baan u bogaadinaynaa waxaan kaloo bogaadinaynaa shaqaalaha iyaguna waqtiga soo jeeda ee ka shaqaynaya hawshan waxaan kaloo bogaadinaynaa oo xusid mudan ciidamada Somaliland ee nabadgelyada hadday tahay militariga hadday tahay booliska hadday tahay degdemiska hadday tahay asluubta ee xilligan inay sanaaduuqda ilaalinayaan dhaxanta u jooga ama ilaa iyo 13 November ama intii ka horeysay ammaanka sugista doorashada ku hawlala ayaa ah rukun weyn iyaga iyo madaxdooda iyo maamulkoodaba in loo mahadnaqo ugu dambeyntii iyadoo komishanka doorashooyinka uu si rasmi ah xaq u leeyahay inuu ku dhawaaqo natiijooyinka waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaanu markhaati ka nahay oo aan caddaynanaa doorashada maanta Somaliland ka dhacday inay tusaale u tahay saldhigga dimuqraadiyadeed iyo geedi socodkiisa inaynu nahay maanta mid wadada cagta saaray isla markaana geedigelinteedu ay dhammaanteed shacbiga Somaliland iyo xukuumad iyo shacbi inooga baahan tahay aad iyo aad baad mahadsantihiin salaam waxaan halkan ka bogaadinaa sidii horeba loo sheegay maxaa la yiraahdaa qaranka Somaliland guud ahaan ay ugu horeeyaan shacabka reer Somaliland tartanka fiican ee nadiifta ah ee saxarka tiran shaqada fiican ee noo qabsoontay iyaga la'aantood la shaqayntoodu aanay inoo hirgasheen komishanka inoo hirgasheen magaca Somaliland aanay ku hirgasheen waan ku bogaadinaa haddii inta ay natiijada si rasmi ah u soo shaacinayaan komishanka doorashooyinka waxaan leenahay oo aan faranaa bulshada reer Somaliland inay meel uga soo wada jeedsadaan gacmaha isqabsadaan walaalnimadooda iyo wada jirkoodana ka shaqeeyaan ciddii heshana la taaniyadeeyo kii kalena uu yahay uu la shaqeeyo cidda maanta talada qaranka Somaliland qaban doonta asxaab iyo ururana inta hadhay iyo inta hadhi doonta iyo inta soo bixi doonta ay taaniyadeeyaan una hambaliyayaan kuna garab istaagaan hawsha qaran ay maalmaha kamida ay inta 5 sano soo socda mas'uuliyadooda hayn doonaan aad iyo aad baa u mahadsantiin maanta taariikhdu tahay 18 bishii 12 2024 waqtiguna uu gaarayo 3 subaxnimo waxaan halkan taagannahay annagoo ah xubnaha matalaya xisbiyada ururada ee la shaqeeya komishanka doorashooyinka qaranka
inaanu shacweynaha jamhuuriyadda somalilan aanu halkan uga cadday inaanu markhaati ka ahayn isugeyntii iyo tirintii codkii ka yimid goobaha degmada doorashada hargeysa oo ah degmada ugu weyn markay noqoto xagga codbixinta oo muddo 3 maalmoodaba soo socotay runaantiina shaqo dheer ahayd sidaa hore loo sheegayna komishinka doorashooyinka qaranku ay shaqo fiican qabteen iyadoo aanu ogeyn inay shaqayn jireen 16 saacadood 17 saacadood iyo in ka badanba oo runaantii ay waqti badan geliyeen xilligeeda ay maaragtay ku dhameeyaan sida lala wada socdo tirinta codadku waxay maraan 4 heer oo goobta degmada gobolka iyo heer qaran waxay degmada hargeysa ay ugu dambeysay tirintii degmada doorashooyinka dalka oo dhan si gudoomiyuhu noo sheegi doono insha Allah iyadoo aynu ka arkin warbaahinta in goboladii kale oo dhan ay soo dhameystirmeen waxaan markaa shacweynaha jamhuuriyadda somalilan ka codsanayna inta uu komishinka doorashooyinka qaranku dhammaystirayo tirinta iyo sugeynta codadka inay sugaan oo nambarada iyo tirooyinka lagu baahinayo warbaahinta gaar ahaan baraha bulshada oo ah wax aan ku fadhiyin tiro sax dhaba inaanay u degdegin waxaan halka ka cadeynayaa anagoo ah xubnaha ka socda xisbiyada ururada inaan wada shaqeyn dowladda leenahay komishinka qaranka in ay ku shaqeeyaan qaab waafaqsan xeerarka doorashooyinkaga iyo shuruucda kale ee dalka taasina ay mar walba kor u qaadayso kalsoonida lagu qabo doorashooyinka qaranka oo maaragtay dadaal badan muujiyay ugu dambeyntii doorasho qurux badan baa inoo dhacday goobjoogayaashiina soo boqdayna ay ku tilmaameen inay ka mid yihiin doorashooyinka ugu heerka sarreeya afrika hadday noqoto dunida saddexaadba warnaantii aad inagu bogaadiyeen taa waxaynu ku sii wadi karnaa quruxdeeda inaynu sugno natiijada isla markaana aynu si ilbaxnimo oo maaragtay heer sare aynu soo dhaweyno natiijada soo baxda annaguna aanu diyaar u nahay mar walba inaanu kor u qaadno kalsoonida lagu qabo guddiga doorashooyinka qaranka anigoo ku hadlaya afka komishinka doorashooyinka qaranka iyo xubnaha ay garab taagan ee matalaya asxaabta iyo ururada siyaasadda waxaan marka hore u diraynaa tacsi tiiraanyo leh dhammaan bulshada reer somalilan uu ka geeriyooday madaxweynaheenii hore mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo marxuum axmed maxamed maxamuud silaanyo oo berrina la aasi doono dhammaan bulshada reer somalilan waanu ka tacsiideynaynaa qoyskii iyo qaraabadii waanu ka tacsiideynaynaa isagana ilaahay jannatul firdaws ha geeyo iyadoo oo uu qaranku ku jiray 2 maalmood oo madaxweynaha qaranku uu fasaxay haddana waxaanu door bidnay inaanu wadno hawshii komishinka laga sugayey iyadoo oo loo dhegdhigayey ku dhawaaqista natiijada doorashooyinka sida ay sheegeenba tiimkan task force-ku waxaanu caawa halkan xilligan dambe aan u taagana inaanu ku wargelino degmadii ugu ballaadhnayd ama gobolkii ugu ballaadhnaa jamhuuriyadda somalilan uguna codka badnaa inuu caawa soo gabagaboobay oo ilaahay mahaddii si fiican oo nidaamsan uu ku soo dhammaaday waxaan kaloo ogeysiinayaa bulshada reer somalilan in dhammaan gobolladii jamhuuriyadda somalilanna ay dhammaadeen isugeynta codadka ay codeeyeen muwaadiniinta reer somalilan taasoo ka soo gudbay heerkii koobaad ee ahayd heer goobeed caawana ka gudbay heerkii labaad ee ahayd heer degmo waxaynu u gudbi doonaa insha allah heer gobol iyo heer qaran oo aan waqti badan qaadan doonin weli waxaynu ku guda jirnaa muddadii sharciga ahayd ee komishinka doorashooyinka qaranku uu haystay ee uu siiyey xeer number 91/2023 waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad ku celcelinaynaa in laga warsugo komishinka doorashooyinka qaranka waayo ku dhawaaqista natiijada hordhacaha ee komishinku ku dhawaaqaya waxay u baahan tahay in ka fiirsi badan la sameeyo in wax allaaliya wixii cabasho ah ee daneeyaasha siyaasaddu
ay ka qabaan la xaliyo si dabadeedna natiijadaas lagu dhawaaqay loogu gudbiyo maxkamadda sare dabadeedna maxkamadda sare ay ugu dhawaaqdo natiijada rasmiga ah waxaa ilaahay mahadiisa ee xubnaha halkan taagan xilligaa u taagan inay saaka subaxii ay bilaabeen shaqadii ay ahayd inay nala jeegareeyaan nala muxuu ahaa ansixiyaan isugeynta heer degmo oo ahayd 370 goobeed ka koobnayd 370 goobood oo degmada Hargeysa taas oo run ahaantii waqti dheer qaadatay ilaahay mahadiina caawa noo soo gabagabowday waxaa isla caawana soo gabagabowday degmada Gabiley oo ahayd labadii degme ugu dambeeyay inoo soo xarooda mahad ilaahay ka sokow waxaan u mahadnaqaynaa ciidamada qaranka kala duwan ilaa hadda heegan buuxag ugu jira sidii ay si nabadgelyo ugu soo xaroon lahaayeen sanaaduuqdii iyo agabkii iyo gaadiidkii iyo shaqaalihii commissionku uu howlgeliyay ee ka shaqeynaya doorashooyinka waxaanu leenahay berri maadaama oo ay tahay aas qaran waxaad naga warsugi doontaan insha Allah hawsha aaska qaranku markay noo dhamaato fadlan waxaan idinka codsanaynaa dhammaan bulshada Somaliland in natiijooyinkan iyo doraskan la wadaagayo laga warsugo commissionka doorashooyinka qaranka aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa mar labaad xubnaha ilaa hadda na garab taagan ee aan wada shaqaynta dhow leenahay aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh